munaasabadan oo lagu xuseeyay maalinta shaqaalaha adduunka oo ku aasaysan 2da bisha May ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka galmudug iyo qaar kamid ah golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ugu horeyn waxa munaasabada daahfuray macallin Nuur Cilmi Cabdulla oo ah gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka galmudug galmudug gacmaha marka isqabsataan xaflad kasta qabsataan xumaan kasta iska meertaan hadda adinka baahan adinka la idin baahan doonaa وإنان جارنا إنان أنو أنت باهدا كبحنا أننا نلا بعض إله إذن كيس ضد كوا ضد نجاه الرئية كوا نرسمن يكوا نقدم بيه وإنان هكسنا كوا نجاه الرئية جارهان عاصمة دمام كعاصمة وحب ديار ويا هاي جلمدو قيب كستيلا ده إني سود ويان إني لشقيان إني كشقيان هرمرنتي عاصمة ده bulshada wax kasto cuuro ku jira sidii bulshadeeda loo bixilaayo billahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaasna dhankiisa xafladda ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dawlad goboleedka galmudug daahir faarax fiidow anagu wasaarad ahaan waxyaabaha loo qorshaysan waxa kamid ah in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur halku dhigayagu waa shaqo abuur waxaanu doonaynaa in wasaaraddu dhawaan ay hirgeliso barnaamijyo dhalinyarada shaqo loogu abuurayo annagoo waliba diiradda saari doono khayraadka dabiiciga ah anagu leenahay kana fogaanayna markasta in dhalinyarada iyadu ay ku tiirsanaadaan shisheeye iyo gacmo kale inay ku tiirsanaadaan ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka galmudug mudane xareed cali xareed haddii aan commitment wada galno aniga hadda idin ka mid ah إذن مثلا معناها أنا حكومتنا كما شقيين الحلوانا لكن شعب كاسدات كمثلا وعدكم ذكوا لنا commitment عن حدام وذا قلنا within 1 year بقول كيف سديتك كشغلة أنت وعن كيني كنا فود 50% listed حدام كوذا شقيينه إلى أن أبور جوي إلا هلو نبتقلي ولا جهل الديجان كان فرحان محمد عبد قلن ل TV كونفور قلبات مقالة Dhuusamareeb